ظلمك الظلم وآثاره السيئة على الفرد والمجتمع. ظلمك يرادك الحمد وكسما يوقفك ظلمك السيئة منشدة بهذا بغاتل ظلمك الدنيا آخرة الله. وليال إلهي سبحانه وتعالى isagoo ifkan abuurtay iyo adoomada ku dhex jira dhammaan isagoo iska leh ayaa xadiis qudsi wuxuu ilaahay ku yiri subhanahu wa ta'ala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalimu. ilaahay nagu nala hadlaya subhanahu wa ta'ala xadiis qudsiga uu la hadlaya wuxuu leeyahay ilaahay addoommadiidiiyo innii xaramtu dulma calaa nafsi dulmiga naftayda ayaan ka xarrimay isagoo ilaahay na leh oo caalamkan iyo waxa ku dhex jiro oo dhan isagoo iskala suu doonana ka yeeli kara ayuu ilaahay wuxuu leeyahay anugu wax ma dulmiyo wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إلهي برعسو وحلم له ظلميا إلهي مصنعين يسوي عالم كإلهي إسكال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ظلمي أنا نحن لو حنكلي مدآن حرمي والله حرمي هيستر منا ظلمي بمركة waxaa iska leeyahay anwaac fara badan. dulmigu kaliya ma aha qofka isbaarada dhiganaya kaas kaliya dulmi ma aha oo ummadii dilaya oo dhacaya oo kufsanaya kaliya ma aha kan ganacsadada ah oo ganacsiga samaynaya ayaa dhici karta isagoo xafiiskiisa iyo dukaankiisa joogo masjidka ku dukanaya magaaladii dhexdeedana inuu dulmi fara badan uu ku sameeyo. dulmiga ku sameyn waxaa laga yaabaa raashin daydkiisu uu dhacay inuu bulshadii caafimaadkooda ku khalkhal gelinayo. waa dulmi. waa dulmiga kuwa ugu khatarta badan. waa dulmiga kuwa ugu xun. waxaa laga yaabaa dhakhtarkii isagoo xafiiskiisa dhakhtarku ku sugan oo isbitaalkiisa ku sugan ayaa laga yaabaa dadkii inuu dulminayo oo tusaale ahaan daawo uu soo iibiyo ama qof ganacsada ah daawo soo iibinaya oo quality-geedu uusan wanaagsanayn oo kiimikadii la tacaalaysay ama la dagaalamaysay cudurka laga soo yareeyay si qiimo iyo sicir jaban uu ugu soo iibsado oo meesha markaa qalqal uu ku geliyo dadka caafimaadkoodii iyo noloshoodii uu galaafto. waxaa dhici karta kii iibinayay raashinka ama waxyaalaha dareeraaga ah inuu soo khayaano oo alaab uu soo khayaanay oo macmala uu suuqii keeno. waa dulmi adduunyadana lagaa jari doono aakhirana lagaa jari doono. magaaladanna iyo waddankeenna Soomaaliya waxa ildarradan waxa baday wax kale ma aha ilaa dulmiga maahan ilaa dulmiga. kii malabka ugu yara iibinayay dulmi wada oo timiri waxbuu intuu isku soo qoosho oo shinni ku soo dhex dilo uu leeyahay waa malab saafi ah. kii dhakhtarka ahay waxbuu dulminahay. kii ganacsiga ahaa dulmiyuu haya. kii dadka dilayay waddada taaganaa ama dhiigga xaaraamta daadinayay ka sii daran. bulsho marka u wada labisatay dulmi xaggee adduunyadana ku helayaan naxariista ilaahay aakhirana ay naxariista ilaahay ku helayaan. nin dhakhtar aha maalin maalmaha ka mida ila soo xiriiray waa i soo wacay wuxuu igu yidhi
dad ganacsato ah ayaa guri weyn kiraystay iyaguna cilmiga waxba kama garanayaan uu yiri ilaa waxay ka rabaan meeshooda inay ribix iyo faa'iido ka helaan waa qalabeeyeen gurigii qalabkii loogu tala galay caafimaadka oo dhan ay u dhameystireen aniga iyo dhakhaatiir kale ay kontrakti nala galeen waxbaayalaan kala saxiixanay agreementiyaan kala qaadanay boqolkiiba 30 ayaa heshiiska ka mid ahaa uu yiri qofkii aan u dirno baaritaan iyo shaybaar inaan anigu ku leeyahay shakhsiyan haddii qofka dhiig aan u diro haddaan kombiyuutar qofka aan u diro baaritaanka nooc walba uu ka mid yahay noocuu doonaba ha noqdo haddaan qof u diro heshiisku wuxuu ahaa boqolkiiba 30 inaan anigu yeelanayo saasaan ku heshiinay waxaa marka dhacayuu yidhi qof ii imanayo yidhi bukaan qof ahaa ii imanayo yidhi ma rabo ninkaa magaciisa inaan sheego qof bukaana ii imanayo yidhi markaasuu wuxuu leeyahay yidhi xalay suulkanaan ka seexan waaye suulkan ayaan xalay ka seexan waayey mas-uulkaad ka seexan weyse iskaanaan u qorahayaa buuri iskaan ayaan u qorahayaa buuri oo laga yaabo $100 inuu ka bato dhiigagga waxaan u dirahayaa uu yidhi beerka keliyaha laga soo baaran leeyahay waxaan u dirahayaa uu yidhi qarash hadafkaygiina waxay tahay ulajeedadayga commissionkayga aan ku leeyahay isbitaalka inuu ziyaado oo uu kordho waan ogahay uu yidhi ninkan miskiinkaa suulkiisa waxaa daaweynaya waa $15 iyo $20 wax la mid ninkaa khayr allaha siiyo runtuu iska sheegay kuwa aan runta sheegaynaa jiro ummadda sidaas u gelaya oo u dhibaataynaya waaba nin xalaal miiranaya waa nin iimaan leh ilaahay ha u barakeeyo cilmigiisa waa aniga hayuu yidhi $15 iyo $20 ayaa daweynaya yidhi miskiinkaas markaasaan waxaan gelinaha uu yidhi baaritaan 150 ilaa 200 ka tallaabsanaya daawadiina ay u sii dheeraa tahay wax yaroo basiiduuna ila yimid cudur yaroo basiid uu sheegay wuxuu yidhi wadaadow xalaal ma ii tahay uu yidhi lacagtaas aan sidaa ku qaatay lacagta sidaa aan ku qaadanayo xalaal ma ii tahay waxaan ku yidhi waa dulmi waana khiyaano miskiinkanna waa dulmisay waana khiyaantay liannahu adigoo og qarash uu ka maarmi karo oo wax baahiyo hadda oo daruuriya oo u haysa aysan jirin adigoo og ayaad maslaxaddaadii ka fiirsatay maslaxaddaadii iyo jeebkaagu inuu xoogaa kordho ayaad ka fiirsatay waa xaaraan waa tusaalooyinka ka dhacaya waddankan dulmiga marka dulmiga walaalayaal waa waxa nabaday ama dadka ganacsatada ha sameeyaan ama dhakhaatiirta ha sameeyaan ama kuwa dhiigga xaqdarrada daadinaya ha sameeyaan ama qofka shakhsiga ahi dulmi uu ku samaynayo deegaankiisa ha noqdo waa kuwa waxa nabaday ishan xun nabaday weeye oo hadda aanu u naalno ilaa adduunyada aanu ka noqonnay mathala suu tusaale xun ina loo soo qaato oo qofkii markii la doonayo in qolo ay burburto la yidhaaho war soomaaliya oo kale ha noqonnina soomaaliya oo kale yacni caalamkii waxaanu noqonnay tilmaan xun kasta qofkii samaynaya inuu soomaaliya u soo qaato darxumada markaas innagu aanu ku jirno walidaalika walaalayaal dulmigu iyo xaqdarrada nooc kasta ay noqotaba dhibaatooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah
إن إلهي أكل لعنذي إلهي جل جلاله حليه ألا لعنة الله على الظالمين لعنة إلهي وحي هاتي كوا ظلمك السمينية أمد اللباتين إياه عرد قودي إيا شرف كودي إيا هنتدودي دقالهودي عافمات كودي دنع والبقف كي قف كظلمية مسلم إلهي واللعنذي إلهي واللعنذي سبحانه وتعالى لعنة إلهينا وحسهلا معها يكون فضودان هفضودي سن لعنة إلهي والظلمك قفك وكظلم بدن يهي وحكسي فقادا موقالك إيا أنشحي بني آدم النمدة وحونا النقضاء قف معاملتي سيحب لغنكيسو بهل أو كلا النقنايو لكن صورة بني آدم وط أرحان درد انتي كقورتي موقال دالمكم موقال بني آدم وليه لكن لغنكيسو ولغنكي دور جوجت إيا حيواناتك شرف ملقفك ظالمكم مرواديسي ويد عدي وجهيسي واقبتي ظالم وجها قبي وجها قواد قبتي كاركاغي واد قبتي بلشده دخديدana magac kuma yeelanaysid ilaahay dinaciisana waa laga lacnaday aakhirana cadaaba ku yaala dulmigaana waa ku soo dhalan doona maalin uu qarxi doona noloshaada noloshu ama ha ku dheeraato ama ha kula gaabatee maalin uu dulmigani kugu qarxi doona ama awlaadaada ha ka soo dhaxbaxo caafimaadkaaga ha ka soo dhaxbaxo hantidaada ha ka soo dhaxbaxo بلايا أنكو كيدسن بلايا داسن وكو قرحي دونتا ظالمو لا تكن ظالما لعباد الله كن نافعا لعباد الله الضمد إلهي هالظلمين الضمد إلهي نفعه الضمد إلهي أنفع الضمد إلهي وحؤتر الضمد إلهي قعنسي مساكين تقعنسي هالظلمين ظالم هالنقنن وجيغا قبي ظالم هالنقن وجيغا قبي إلهي أكتسنا اللعنة ذا كوتالا الدنيا واد اوغان دونتاه ظلمغو او كوغو سو دالان دونا نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه حديث ابو داود iyo tirmidhi ay sunankooda ku warinayeen nabiga صلى الله عليه وسلم wuxuu ku yiri ma min dhanbin ajdara an yu'ajjil Allah 'uqubatahu li saahibihi min al-baghi qabla an yudakhirahu fi al-akhirah مجروا يري النبي صلى الله عليه وسلم ذنب إلهي وعقوبتي سكسو الدجين أقيهي ظلمك آخرة انتان لقاري يري النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يدخره في الآخرة كيتك آخرنا قوني أيهي ودنوبتا انتو سنقفكو لمن وإنده سوشنا وكو أركي عقوبتو ده الدونك انتو جوغو قفك هداد عردقيس الظلمسي أو شرفكيس أدميل وقد علي بلا يكو دبتها جنا إلهي كو قصة لذا أدنى ومضى هداد دبتها جنتهي وأضمد إلهي أدبت لقاته بلا يا إلهي كو دبت لقاه وعردقا شرفك جنا وعده ومضى هداد عافمات كوري هداد ظلمنيسو عافمات كاجا إلهي خرباه سبحانه وتعالى ومضى هداد ظلمنيسو أولاد دادا إلهي عاسي كاغدغا أولاد دادا إلهي كوغو سلدا أدغا يا أولاد دادا قاتر كلا تاغنان دونا أو اسكو دعي دونا أو اسكو هور إيمان دونا تي آخرنا وكو غوني تي آخرنا وكو غوني لا تكن ظالما بل كن نافعا لعباد الله ظالم هنقن وجيغا غبي وجيغا غبي ظالم هنقن النافع نقو أدومد إلهي وحتر أدومد إلهي قعنسي والظالم هالنقن سدح قصة أيها الربايل الشيخ قصة أقوه الرئيس إمام الذهبي رحمه الله تعالى أيها وحكو الشيخ كتاب كيسن ليراه الكبائر وقصة ظلمك يعني إن إلهي سود الدجين يظالمك أسود الدجين يتسنيس إمام الذهبي رحمه الله تعالى كتاب كيس الكبائر وحكيري ولا ميل جد قوية دقتي بود مركزا نين مسكين وملاي وتا وملاي وين وتا
ayaa soo maray daalimiintii mid ka mid ah wuxuu yidhi malayga dhig iska dhig malayga wuxuu yidhi see u dhigaa malayga carruurtayda oo masaakiin ahoo maalmahan aan hilib dhadhaminin ayaan u wadaa oo malaygaas ilaahay maanta isoo siiyey ma daynayo mana ku siinayo ninkii waa xoogay waa ka itaal roonaaday malaygii ka qaatay miskiinkii asagoo kurbaysan oo dhibaataysan oo murugaysan ayuu gurigiisa iska aaday ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisa waa dembiyada dulmigu wuxuu ka mid yahay dunidan qofka lagu tuso inta uusan dhiman ilaahay awooddiisa subxaanahu wa tacaala wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huu ilaahay ciidamadiisa isaga unbaa garanaya meeshuu ilaahay ciidan kaaga keenayo oo ilaahay uu kugu sallidayo balaayo meeshuu ilaahay kaaga keenayo isaga unbaa garanaya yaa walilaahi junuudu samaawaati waalard ilaahay cirka iyo dhulka waxa ku jiroo dhan ayaa ciidan u ah biyuhu markugu sallidahay balaayuu kugu sallidahay halaq iyo balaayuu kugu sallidi caafimaad darruu kugu sallidi meelaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wax un kaaga keeni balaayo haddaad daalim tahay ninkii malaygii isagoo sidaa u sitaa daalimkii suulkaasu malaygii uu ka qaniinay waa malay haddii badda laga bixiyo meyda ilaahay awooddiisa subxaanahu wa tacaala dhab suulkii malay iska meyda oo baddaa laga soo saaroo la ogyahay inuusan noolaanaynin oo daqiiqadaysa naftu ku jiraynin ilaahay cuquubadiisii wey meesha ilaahay kaa ciqaabayo iskama celin kartid suulkaasuu dhab ka yidhi ninkii waa tegey aadaar uu bilaabay iyo aadaar habeenkii indhaha iskuma geynin waa iska aadaarayay ka bacdi dhakhtaruu la xidhiiray innahaa bidaayatu alaakila dhakhtarkii wuxuu yidhi innahaa bidaayatu alaakila waa bilowgii kansarkuu yidhi kansaraa qabsaduu yidhi meesha subxaana allah innahaa bidaayatu alaakila waa bilowgii kansarkuu yidhi dhakhtarkii daalimow wejigaa gubay laa takun daalima war daalim ha noqon tii aakhirana waa kuu dheeraatay maalin uunbuu kugu qarxi doonaa bumbada dulmiga oo duugatay yaa ayuha annaas innamaa bagyukum calaa anfusikum mataaca alxayaati اddunyaa ilaahay wuxuu yidhi dadow dulmigu adinka uunbuu idinku soo laaban doonaa dulmigu naftiinna uunbuu ku soo laaban doonaa walaa taxsabanna allaha gaafilan camaa yaclamu الظaalimuun camaa yacmalu الظaalimuun innamaa yu'akhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi alabsaar ha u malaynin ilaahay inuu moog yahay oo daalimiintu waxa ay samaynayaan ilaahay inuu moog yahay ha u malaynuu yidhi rabbulciza jala jalaaluh daalimow ha isdhihin rabbigaa waa ku iloobay daalimow ha isdhihin mugdiga dhexdiisa waxaad ku samaynayso awoodda beenbeenta ahayd sheeganayso rabbigaa inuu ku halmaamayo ha u malayn ninkii waxaa la yidhi dhakhtarkii wuxuu ku yidhi sida dahabi kabaa'irkiisa uu ku qoray suulkan haddaadan iska jarin oon lagaa jarin gacanta dhan u dhaadhacahay xanuunka iga jar wuu yidhi waa laga jaray suulkii waa balaayo haysatay haddana waa sii faaf suu haddana hurdadii uu ka tegey waa soo laabtay waa laga jaray ilaa xusulkaa haddana laga jaray waa la jaray oo garabkiiya haddana laga jaray garabka markay marayso xanuun iyo kurbana meel walba ay ka timid ayuu bulshada dhex wareegayay isagoo dhahaya man ra'aanii falaa yadlimanna axada war qofkii arkow qof ha dulmina saasuu ninkii ku dhintay imaamu dahabi wuxuu yidhi raximahullah suuqyaduu marayay isagoo dhahaya man ra'aanii falaa yadlimanna axadaa war qofkii i arkow qof muslima ha isku dulminin qof muslima ha isku dulminin
إن الله لا يملي على الظالم ولا يمهله إلهي ظالم كمالمو أسوغا لكن مسي دايو مال انت لقبته إلهي مسي دايو ظالمك قصة كلو صحابة دحمرتي صحابي الذي جري سعيد بن زيد وبخاري صحيح سكو ورنا يو قصة هوينيا اسكد دبا دغتay cirdigiisii iyo sharafkiisii caay dhibaato saciidna muxuu yahay saciid ibn zaydna waa ahad al-asharati al-mubashirin bil janna waa tobankii nabigu iyagoo nool jannada ugu bishaareeyay bini aadam laga fakan maayo weligaa jannaha lagu bishaareeyay weligaa haysliin bini aadam ka fakan ya saciid ibn zayd ahad al-ashara al-mubashirin bil janna هوينيا اسكت دبا دغتay waa khaa'in waa tuug maxay ku aadayna dhul iga dhacay dhul ayuu iga dhacay iga boobay khaa'in way tuuga markaas waxa xilka hayay oo madaxweyne ka ahaa wadamada muslimiinta oo dhan Marwan ibn al-Hakam al-Umawi ninkii dawlad umawiya oo dhan aasaasay madaxweynahaasaan noolaa oo joogay Marwan ibn al-Hakam al-Umawi Marwan marka ay ku dacaweysay waxay tiri Marwanow ninkaan la leeyahay jannada lagu bishaareeyay dhulkaygii boobay Saciid ibn Zayd meel uga fako bin aadam adigu kaas bin aadam meel uga fako cid ka fakanaysa bin aadam ma jirto ولو كان واحدا من العشرة المبشرين بالجنة كو النبي جنة وبشاريه بالله كرم ويا ابي سعيد بن زيد وحير مانيغا دول بوبيه انيغو كم مقلي نبي محمد صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الارض قفكي هل تاكو دولك بوبا دوقه 7 اراضين تضبط دولا قورت لو غليا انا حديثكاس النبي دغهيغا uga maqlay صلى الله عليه وسلم مي إسلامتها سمانتي شرف كيجي ميل وقدعيس وإلى ذا دولكو بابي سعيد بن زيد اللهم إن كانت كاذبة فاعن بصرها واقتلها في أرضها إلهو هدي بيان إيقا شيغيسو إلهو إندها كرد دولك أي شيغانيسو إنان كبوابنا إلهو كل حد المال عد الله أيضا إن دولا دارت الأيام دورتها ومرت الأيام مرها مالمه يدورك مالمه وسو وريغن قمونك يا كدعي هبارك سعيد بن زيد إسلانتي عنده باشي أيضا ميل مريسة ودولك دح مريسة أي ماشاس أيضا جوكته أي عيل ماشي اللي كدعي هلكي كوغيريت تي آخرنا إله أنكرنا إلهي الدور ربنا وعفن الدور ربنا إلهي وعقابي لكن دنيا دوي هالشيء إسلام تاس دنيا دوي كوه هالشيء قصة كلا لبعض الصحابة ده حد عليه ظلم إن لسود الدجين يتوسنا يشاه صحابي الذي جري سعد بن أبي وقاص كوفة مضحدة كأهان جري دول كان العراق قبل الذي قبل كم إذا كوفة ومضح كان نقضي ننا عرديسي لقى علم واي شرف كيسي والدولة عمر بن الخطاب مركز السنيد وسيدنا عمر ومركز تلنا يي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا وحيري مدحوينه يكد عوية وحيري نين كان قبل كان مدحده وقدكتي إنه لا يقسم بالسوية لا يسير بالسرية ولا يقضي بالسوية نين كان وحوي إلى لدى يعيدا كمرك الراعينا الدنيا دي سوسك آده وجهاتك كما قيب قاته عدالتنا ما هو كوحديس يا قبيل كيسة أنبو وحسية مقالة وحكوها يا ظلمي وسعد بن أبي وقاص مساجد كده يحدثون كإستاغي مساجد كيوردن أيكو فضيح أيكو عيبي
sacd ibn abi waqaas saxaabigii marka wuxuu yidhi allaahuma in qaama haada riyaa'an wa sumca ilaahow haddii addoonkaagani uu u istaagay istustus iyo anigu cirdigayga iyo sharaftayda uu dhaawaco saddex arrimoodaan ilaahu ku habaariyo yidhi allaahuma adil cumrah wa adil faqrah wa carridhu lilfitan ilaahu horta cumrigiisa dheere diintana ilaahu ka fidne albaabada faqrigana ilaahu ku fur yaa ilaahu cumrigiisa dheere albaabka faqrina ilaahu ku fur diintana ilaahu ka fidneeyo fitan ilaahu u bandhig ninkii cabdilmelik oo markaa xilligaa noolaa wuxuu yidhi waxaan arkay qad saqada xaajibaahu ayadoo markaas labadiisan xaajiboo indhaha ka sarreeya ay soo dhaceen oo indhihii ay qariyeen weynin iyo da' wayatacaradu liljawaari yaqmisuhun gabdhuhuna ay waddada ka mari la'yihiin gabdhaha yarirkaa waana indhala' yahay gabadh meesha qofkii soo maraysaba gacantuu isaga taagahay waa tuutuujinahay saasuu ku geeriyooday khaatimadaas xun ayuu ku geeriyooday haddee tabarna uma hayo waa habaaraa haysta habaaraa haysta meelahaasuu taagnaa waxaan arku yidhi cabdulmelik isagoo waayeel noqday gabdhihii yaryarkaana ay jidka ka mari la'yihiin ninkii masaajidka ku fadeexeeyey ee ku dulmiyey sacd ibni abi waqaas ayuu ahaa walidaalika walaalayaal dulmiga waa bumbo ku aasan waa bumbo balaayo ah ood aasatay haddii aad daalim tahay walidaalika nabigeena sala allahu wasalama wabaaraka calayh xadiis wuxuu ku tilmaamay nabigu sala allahu calayhi wasalam man gashana falaysa mina qofkii ummaddayda dulmi iyo khiyaano ku dhex sameeya annaga naga mid maahan uu yidhi hadyigaygii iyo shafaacadaydii iyo diintaydii midna kuma socduu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh bal waxaa jiray nin saxaabi ah oo la dhihi jiray kirkira oo nabiga la noolaa jiray sala allahu calayhi wasalam dulmigu dhibaatada uu leeyahay kirkira nabigu u khaadumay jiray sala allahu calayhi wasalam shayddaanaa qaaday maro markaa meesha tiilay oo qaniimo ah oo markaa ka mid ahayd dadkii dharkii la qaniimaystay iyo xoolihii la qaniimaystay ayuu xaday oo asxaabtii uu ka dhex xaday kirkira la dhihi jiray waa dhintay nabigana wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam huwa fi nnaar kirkira waa ahlu naar yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam fadahabuu yabxahuuna canhu saxaabadii waxay isku dayeen sababta uu ninkan masjidka ku dukan jiray oo nabiga u khaadumayn jiray sala allahu calayhi wasalam uu ahlu naar ku noqday inay baaritaan ku sameeyaan nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi fii burdatin qad qallahaa kirkira maradii uu xaday ayaa qabrigiisa lagu holcinaahu yidhi lagu cadaabahay oo lagu gubahay ya waa hal maro waa hal go' oo mujtamacii iyo bulshadii uu ku dhex noolaa kirkira uu ka xaday oo uu ka khiyaanay oo uu ka dulmiyey isagoo nabigana u khidmaynayo nabiga moxamed u adeegayey sala allahu calayhi wasalam isagoo saxaabi ahaa saxaabada nabiga sala allahu calayhi wasalam ka mid ah ayaa dulmigii maradaa uu xaday waxay kharribtay adduunyadiisa iyo aakhiradiisii gubtay labadiiba hal mara saxaabigaa waxay ka gubtay oo uu xaday adduunyadiisii iyo aakhiradiisiiba gubtay dulmigu marka walaalayaal wuxuu sababku ugu noqon karaa adduunyadaadii iyo aakhiradaadiiba inuu sidaa u gubo
maxaad u malaynaya saxaabi sidaa cuquubadiisu ay noqotay adigoo nebi maxamed arkin sala allahu calayhi wasalam oo nebi maxamed aadan la jihaadin oo casrigaa dahabigaa aadan noolayn oo xilligan fitanta iyo aakhiru zamaanka dhex nool haddaad ummaddii dulmisay ummaddii aad khayaanto maxaad u malaynayaa adduunyadaadu see u sawirmi doontaa aakhiradaadu bal muuqaalka ay yeelan doonto sheeg aakhiradaada iyo qabrigaagu muuqaalkee noqon doona nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiskii bukhaari uu warinayay wuxuu ku tilmaamay laa acrifanna waaxidan minkum yaxmilu ruqaa'an lahu khuwaah yaxmilu baciiran lahu ruqaa' wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam qof walba ummadda wixii uu ka dulmiyo isagoo qoorta ku siduu keeni ilaahay hortiisa yaanan idin arkin qof ummaddayda ka mid ah ee rati qoorta ku sida oo ratigii uu ka kor ololayo oo uu ka kor qayliyayo yaanan idin arkin uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam qof ummaddayda ka mid ah oo rati qoorta ku sida ratigiina uu ka dul qayliyayo war yaanan ummaddayda kor dhex arkin uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam subxaana allah intaa khalaa'iqda ah oo ilaahay hortiisa taagan haddii aad ilaahay hortiisii soo istaagto adigoo sida intaasoo juuni oo lacaga intaas oo neef oo geel ah ay kaa dul qayliyayaan oo ilaahay hortiisa iyo khalaa'iqdii qiyaamaha lagugu fadeexeeyo adduunyadaadii iyo aakhiradaadii muuqaalka ay yeelan doonaan maxay tahay si mustaqbalka aad sheeganayso yaa war yaanan arkin uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam isagoo neef arigihii ka dul qayliyayo neef lo ah isagoo ka dul qayliyayo tunka ku sida qof adinka idinka mida yaanan arkin ayuu yidhi nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh dulmigu marka walaalayaal qofka daalimka ah wejigiisaa ku gubanaya kaarkiisaa ku dhacaya sumcaddiisa adduunyo iyo middiisa aakhiro ayaa ku baaba'aysa ilaahayna akhiiran tabartiisuu tusi doonaa tabarta miskiinka daalimku inuu miskiin yahay inaad daciif tahay inaad quraanjadaa ka tabar yar tahay ayaa ilaahay ku tusi doonaa caaqibadaadaa ilaahay ku tusi doonaa ya waxaa qiso uu ku wariyey ibnu jariir aلطabari kitaabkiisa tafsiirka ah ninkii gaalka ahaa ee xilligii nebi ibraahim noolaayee namruud la dhihi jiray namruud nin daalimuhu ahaa alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbihi an aataahu allaahu اlmulk nebi ibraahim ninkii la doodayuu ahaa qaala ana uxyi wa umiit ninkii yidhi waxna waa nooleeyaa waxna waa dilaa rabbinimuu sheegtay ninkaasi namruudaa la dhihi jiray dulmi meeshuu ka gaaray iyo qallafsanaan iyo kibir iyo isla weyni intuu ka gaaray qaala ana uxyi wa umiit anaa waxna nooleeya waxna dila dulmiga heerkaasuu ka gaaray ilaahay wuxuu u soo diray makhluuqaadkiisa bahashan ugu tabarta yar ee kaneecada ah ayaa lagu salliday sida ibnu jariir aلطabari tafsiirkiisa uu ku sheegayo sankaasay uga aruurtay bal tabarta aan la egnahay fiir daalimow tabartaada fiir halkaasii ka buuxs sankaas waa cuquubo lagu ciqaabayo markay halkaa ka buuxsatay oo madaxii iyo maskaxdii ay ka gashay fasaara yudrabu biاnnicaal madaxiisaa waxaa lagu garaaci jiray kob lagu garaaci jiray iga garaac uu leeyahy intaasuu nafis ka dhigana ka bacdina waa iska dhintay saa uma sii noolaan waa iska geeriyooday bal daalimow wejigaa gubaya tabartaada fiir daalimow wejigaa gubaya tabartaada fiiri dadkii daalimiinta ahay ee dunidan soo maray ee jabaabirada ahay yaa ka nool maanta iyagoo bumbadoodii dulmiga ahayna ay ku qaraxday oo la kulmay yaa ka nool maanta aawo daalimiintii dunidan ku noolaan jiray daalimow sidaasoo kale aad u tegi doontaa wakhti kooban maalmo yar ka bacdi waa tegi doontaa dembigaagiina wuu kugu qarxi doonaa qof walbow dulmiga iska ilaali
ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay noo dhaafo oo ilaahay uuna asturo oo ilaahay uuna ilaaliyo oo ilaahay uuna xafido ayaan ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد